Dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa 2021 ee sanadkan sii dhamaanaya ayaa muuqaalkan ku soo qaadan doona, waana qaybtii koowaad. Waa taxane cusub. 1. Doorashada Joe Biden. Lama filayn in uu Joe Biden ku soo bixi doono doorashada Mareykanka. Waxaa la filayay mar kale inuu soo laabto Donald J. Trump, laakiin Joe Biden ayaa ku guuleystay doorashada. Sababaha keenay in Donald Trump uu xilka ku soo laabay waxaa ka mid ah ku kicidda dadka Islaamka ee ku nool waddanka Mareykanka, maadaama ninkaas uu aad u neceb yahay Islaamka, kana soo horjeedo Islaamka in ay wax xukun ka qabtaan waddanka Mareykanka. Waxaan xasuusanaa weeraradii ku qaadi jiray Ilhan Cumar. Sidoo kale, dadka madowga ayaa la sheegaa in ay ka dambeeyaan in uu soo laaban Donald Trump. Sababta waa in xilligaas uu hayay Donald Trump madaxweynaha ay dhibaatooyin loo geystay dadka madowga, sida kiiskii aadka u caanbaxay ee George Floyd lagu dilay, kaasoo sababay caro aad u weyn. Dhacdada labaad waa Chelsea oo ku guuleysatay Champions League. Qof ma islahayn Chelsea ayaa ku guuleysanaysa Champions League. Sababtu waa sidii u ciyaaraysay Premier League oo aad u liidatay. Sanadkaas Chelsea ayaa suuqa waxay gelisay lacag dhan 400 milyan iyo wax kor u sii dhaafiyo, laakiin waxay awoodi weyday xitaa inay soo gasho kaalmaha u horeeya ee Premier League bilaaway xilli ciyaareedkaas. Laakiin waxay taasi sababtay in shaqada laga ceeriyo coachkii xilligaas iyo tababarihii xilligaas ee kooxda Chelsea ee Frank Lampard, oo ah halyigii hore ee kooxda Chelsea. Waxaana kooxda la keenay Thomas Tuchel. Thomas Tuchel ayaa kooxdii wuxuu ka dhigay mid ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan qaaradda Yurub, taas oo suurtagelisay in ay Chelsea markeedii labaad ee taariikhda Champions League ku guuleysato. Xilli kooxda ay isku waddanka ka soo baxaan ee Man City ay ka qaaday ciyaar ka dhacday garoonka Porto ee caasimadda waddanka Portugal ee Lisbon. Ciyaartaas oo ku dhamaatay 1-0 ayaa ciyaaryahanka da'da yar ee reer Jarman Kai Havertz, kaasoo ah ciyaaryahankii ugu qaalisanaa xilli ciyaareedkaas ay Chelsea soo gadato, uu ka dhaliyay gool cajiib ah. Taasna waa dhacdada labaad ee ugu caansaneyd 2021. Dhacdada saddexaad waa bedelidda magaca Facebook. 2021 mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ayaa dhacay. Ninka iska leh shirkadda Facebook ayaa wuxuu bedelay magaca Facebook, wuxuuna u bedelay magaca Meta. Ninkan ee lagu magacaabo Mark Zuckerberg ee da'da yarta ee qaniga ayaa magacan bedelay kadib markii musiibooyin isdaba joog ah ay haleeshay Facebook, kaasoo sababay in muddo 8 saacadood ah uu hawada ka maqnaado caalamka oo dhan. Mark Zuckerberg ayaa wuxuu sheegay in uu soo wado Metaverse, midaas oo adduunka dhan ka yaabi doono sanadada soo socda. Wuxuuna sheegay in uu Metaverse ku dhisi doono 10 sano ee soo socota. Magaca Facebook ayaa waxaa lagu bedelay magaca Metaverse. Dhacdada afraad waa Drew, YouTuber-ka caanka oo booqday wadamada caalamka oo dhan. Ninkan u dhashay waddanka Mareykanka ee Yuhuudiga ah, haysta dhalashada Mareykanka, ayaa wuxuu booqday dhammaan 197 waddan ee caalamka ku yaal oo dhan. Soomaaliya ayuu soo booqday 2 sano ka hor. Ninkan ayaa sanadkan wuxuu soo dhammaystiray gabagabadiina ka dhigay waddanka Sacuudi Carabiya waddankii u dambeeyay oo caalamka soo booqdo, taasoo ka dhigayso qof ka mid ah dadka ugu caansan ee sanadkan hadda sii dhamaanaya ay baraha bulshada hadal haysay, maadaama uu soo booqday wadamada caalamka oo dhan. Inkastoo uu bilaabay 2021 gudahooda booqashada wadamadan, laakiin wuxuu soo dhameeyay 2021 bishii November in uu soo booqdo wadamada caalamka oo dhan. Qodobka u dambeeya ee qaybta koowaad waa wadamada Carabta oo xiriir la yeeshay Israa'iil. Wadamada Sacuudi Carabiya, Imaaraadka, Bahrain iyo Masar ayaa waxay la yeesheen xiriir toos ah waddanka Israa'iil. Inkastoo dadka Islaamka dhammaantood ay u garanayaan inuu yahay midkani ee Israa'iil uu waddan u yahay,
laakiin wadamadan oo ka mid ah kuwa ugu tunka weyn Carabta ayaa waxay la yeesheen xiriir. Tan ayaa ka dambeysay markii uu madaxweynaha ahaa waddanka Mareykanka Donald J. Trump, kaasoo sabab u ahaa sano ka dambeeyay in wadamadan ay xiriir la yeeshaan waddanka Israa'iil. Dhammaanteen waa ognahay waxa Israa'iil ay ka wado Falastiin, barakicin, dil joogto ah iyo hanjabaad iyo duqeyn aan kala joogsi lahayn ayay waxay ka wadaa waddanka Falastiin. Israa'iil oo xoog ku qabsatay Falastiin ayaa waxaa taas ka sii naxdin badan in mid ka mid ah wadamadii ugu awoodda weynaa Carabta oo ah Sacuudi Carabiya oo ku yaala xadkii Maka iyo Madiino oo ah labada magaalo ugu sharafta badan dunida ay ku yaalaan in maanta ay u tartamayaan xiriirka iyo la shaqeynta Israa'iil. Muuqaalkeena maanta ee qaybta koowaad dhacdooyinkii sanadkan ugu caansanaa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.